مسؤولينta ururka Jiidaliya gobolka Togdheer ayaa maanta si kulul u cambaareeyay xariga wariye Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay kaasoo ay ku tilmaameen inuu yahay mid sharci darro ah isla mar ahaantaana loo maray sifo sharci darro ah waxa ay sidoo kale mas'uuliyiintan xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyeen inay xabsiga u taxaabeen mas'uuliyiinta ururka Jiidali ee gobolka Saaxil iyagoo ku nuuxnuuxsaday inay xukuumadda Soomaaliland ugu ruqaansanayso xariga ay kula kacday wariye Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay si ay dib uga dhacdo doorashadu waqtigii loogu tala galay waa sida hadalka u dhigeen waxaanay gaashaanka ku dhufteen inaanay marnaba u dulqaadan doonin inay doorashadu waqtigeeda dib uga dhacday iyo waliba xarkaha lagula kacayo warbaahinta madaxa banaan ayagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladoodii kamid ahaa sidoo kale waxaan cambaareynaa xariga loo geystay Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay wariyihii Somali Channel ee magaalada Berbera gobolka Saaxil dalku wuxuu iyo dadku waxay ku wadaan waxa dalka loogu wada noolaa xasilooni iyo amni hadii la waayo xasilooni iyo amni maamul jiri maayo shacabna jiri maayo dal jiri maayo xukuumadda waxaan leenahay oo nagu baaqayna waa inay xorriyadooda u soo celisaa nimanka ay ka qaaday mas'uuliyiinta ay ka qaaday xorriyadoodii talabaad nimanka aarariyada isticmaalaya ninkii kelmad ilaa xortiga qowl meel kaga hadlayeen aarariyada soo diraya cibku hadduu soo dhaco halka galaan baan ka gelin anaguna shacabku waxay hore uga gilgisheen waxay hore uga dagaalameen waxay dalkan dhiig ugu soo shubeen waxay ahayd inay xorriyad helaan maanta hadii la hatii socon mayso halkii uu meenu dib ugu noqonayna waxaan ka cambareynaa xariga labada xubnood ee Jiidali Bashiir Umar Cilmi Qabile iyo Cabdikariin iyo Maxamed soo fadhiistay oo wariyihii Somali Channel waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland waxay noqotay berberi laantii buura xamar bay noqotay toorada cusub baanayna heshay waxaan leeyahay shacabka reer Berbera iyo shacabka reer Burco iyo shacabka dhammaan reer Soomaaliland way ka gilgishaan saxaafadda baxmadaha banaan lagu hayo caburinta Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay wariyihii Somali Channel oo si bareera loo xiray dana doonaya lagu maxkamadeeyo Berbera nin isaga waxba geysan oo fal dambiye lagu qaban ayaa kibir lagu xiray waxaan leeyahay xubnaha Jiidali iyo Somali Channel wariyihiisa Maxamed Cabdilaahi ba si bilaashada xorriyadooda loo soo celiyo marka ugu horeysa labada xubnood inanka suxufiga Cabdilaahi soo fadhiistay iyo gudoomiyaha Jiidali degmada Sheekh ee lagu xiray Sheekh maxaa uga hadlaysan waxay wadanka khalkhalka laga daayo caafurka laga daayo dhalinyarada wariyaasha xidhana la sii daayo dhalinyarada khalkhalkan hadda ay xukuumaddu ay wado ay raadinayso mar isku qaado sax dheer iyo mar isku qaado awdal iyo mar taaqun jeedii mar aanu taa waxaan eriyayna suudaamo waro iyagu ay hoosta ka direen iyo mar sheekh yimaadaan muddo kordhin baa laga raadinaya taana laga heli maayo cidna laga heli maayo war weydii dhabaata cid si dhacaysaa tiini qoyar dalka dhaafa wa barwaaqo aadan maxmed shabakada caalamiga oo Odweyne News magaalada Burco.